kulan looga hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amnigu ay wada shaqayn lahaayeen ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankaasi waxaa ka qayb galay warbixinta noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. kulankani oo ahaa mid aad u balaaran oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayay nadaafadda iyo nabadgelyada iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay hay'adaha amniga uga shaqayn lahaayeen adkaynta ammaanka magaalada Muqdisho. waxaana kulanka ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada Xamar Jajab iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha 17 degmo, xubno ka socday qurba joogta Soomaaliyeed, abwaana iyo fanaaniinta qaranka, culimada diin iyo madax dhaqameedyo, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi. kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah ayaa ugu horeyn waxaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa Maxamed Axmed Qoomaar iyo fanaaniinta kooxda deegaan waxay halkaasi ku soo bandhigeen heeso wadani ah iyo kuwa lagu amaanayay waxqabadka maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed oo kulanka ka hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho inay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan adkaynta ammaanka. iskaashi ayaa wuxuu leeyahay runtii midnimada inaan iskaashano kana wada shaqeyno danteena oo ah in aan deegaankeena xasilooni aan ka dhigno lana shaqeyno hay'adaha ammaanka. waqtiga la cabsi jiro runtii waa dhammaatay. maanta waxaan joognaa waqti ah in qof walba oo muwaadin ah oo u shaqeeyo nidaamka dowladnimada kana shaqeeyo sidii xasilooni lagu heli lahaa. waana rajaynaynaa runtii inaad adinkana door weyn hore uga soo qaadateen haddana aad ka qayb qaadan doontaan. shacabka degmada waxaan kaga mahadcelinaa runtii waxaa jira dad aad u fara badan oo habeenkii xilliyada dambe nala shaqeeya oo nagala shaqeeya nabadgelyada. runtii dadkaasi waxay u shaqaynayaan waa wadanka, waxay ogyihiin qiimaha nabadgelyada ay leedahay iyo waajibka wadanka uu ku leeyahay. waan kaga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay inaad sida u shaqayn jirteen usii laba jibaartaan. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu baaqi kala duwan u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. qof ayadu doonaysa inay ummadda baabi'iso isdisha qadana waa dhici kara, laakiin waa inaan dadaalnaa. 80, 90 iyo 100 waa in la dadaalaa. shacabka ayaana dadaali kara. hay'adka amniga kaliya waxaa weeyaan hadda shacabka uga shaqeey gudoomiyaha degmada maamulkiisa iyo shacabkiisa amiya maana uga taaganahay si maanta lagu ammaanay Xamar Jajab aan ognahay inuu ku ammaanan tahay shacabka degan iyo maamulkiisaba. waxaynu rabnaa wixii lagu soo duumanay arrintaa inaynu xoog mar labaad iyo mar saddexaad saarno. dhinaca nadaafadda waxaa laga maarmaan. nadaafaddu waxaad ogtihiin inay tahay diiniyan iyo ilbaxnimo iyo caafimaad dhinac kastaba. ruuxa maanta soo booqanaya waddan kasta daanta oo aad ka dhigto garoonka waxaad eegtaa waxaa ugu horeeya magaalada bilicdeeda, quruxdeeda, jidka si u dhisan yihiin. haddaad qashin iyo tuqsi iyo wax lagu daal aragto ruuxaasi dalxiis hadduu yahay iyo dan kale u socdo waxaa weeyaan kuma sii noolaan karo ma joogi karo. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. kulan looga hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amnigu ay wada shaqayn lahaayeen ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankaasi waxaa ka qayb galay warbixinta noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. kulankani oo ahaa mid aad u balaaran oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayay nadaafadda iyo nabadgelyada iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay hay'adaha amniga uga shaqayn lahaayeen adkaynta ammaanka magaalada Muqdisho. waxaana kulanka ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada Xamar Jajab iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha 17 degmo, xubno ka socday qurba joogta Soomaaliyeed, abwaana iyo fanaaniinta qaranka, culimada diin iyo madax dhaqameedyo, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi.
kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah ayaa ugu horeyn waxaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa Maxamed Axmed Qoomaar iyo fanaaniinta kooxda deegaan waxay halkaasi ku soo bandhigeen heeso wadani ah iyo kuwa lagu amaanayay waxqabadka maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.